waxaa dalal ku yaala galbeedka ku soo badan ay siyaasadaha soo galootay nacaybka ah kuwaas oo gaar ahaan dadka ugu badan ee u dhiban ay kow ka yihiin dadka muslimiinta ah tusaale ahaan waxa aad u soo noqnoqda masaajid la weeraro ama la isku dayo in la sharaf tiro oo waxyaabo qurun ah lagu soo tuuro ama la dhex dhigo 10kii bishan Agoosto masjidka Al-Nuur ee magaalada Oslo ee caasimadda Norway ayaa waxa soo weeraray 22 jir isir u dirir ah oo lagu magacaabo Philip Manshaus kaasoo qoraal yar oo uu sameeyay weerarka ka hor ku sheegay in uu riyaaqsan yahay ninkii muslimiinta ku laayay masaajid ku taala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand halkaasoo ay ku dhinteen ilaa 50 qofood Cabdixakiin Maxamed oo kamid ah maamulka sare ee masjidka ugu weyn magaalada Gothenburg ee Bellevue ayaa ka waramaya inay durba bilaabeen tilaabooyin falcelin ah oo ay kaga gaashaamanayaan weerarada noocan ah walaalo ma santahay Maxamed falcelinta horta ugu muhiimsan oo falalkan oo kale laga qaadan karo waxay tahay in la sameeyo koox oo amniga ka shaqeysa masaajid kasta oo ay qeexan tahay qof kasta wuxuu qaban lahaa waliba arrinkaasu wuxuu muhiimad gooniye si yeelanaya markii dad badan ay iskugu imaanayaan goobaha cibaadada masaajidda mararkaas oo kale waxa kamid ah ciidaha ramadaanka kale waxa kamid ah muctamaraadka dadkaas marka tirada badan leh waxay u baahan yihiin in si fiican loo agaasimo oo aan diyaarino koox oo amniga ka shaqeysa marka la eego xeerarka ka degsan bixinta ruqsadaha hubhaysiga dadka rayidka ah ee dalkan Sweden waa mid si aad ah u adag marka laga reebo kiisas dhif ah sida ilaalada safaaradaha iyo wixii lamid ah Dayib Xaashi Kadiye oo ganacsi ku haysta rug la yiraahdo Som Center oo ka soo horjeeda isla masjidka Bellevue ayaa BBC-da u sheegay inuu caqabad kala kulmay samaysiga ilaalo gaar ah oo hubaysan oo ay iyagu mushaharkooda bixiyaan waxa ugu badan ama ugu horreysaan ka fikirnay marka meesha furin waxay ahayd inaan sameeyno dad meesha ilaaliyo oo eega ka bacdi dad xataa habeenkii waqtiga dambe eega way waxa jirta dad dukaamadii wax walba ka gubi karo ayagu ula jeedo isirnacayb maadaama dad oo muslimiin ay meesha degan yihiin marka waxa dhacday dad Soomaali ah oo ama ajnabi xataa isugu jiro muslimiin ah ayaan waxaan u qoondeynay inaan lacag siino ayagana ay arintii sameeyaan waxaan isku daynaa qolooyinka booliiska la xiriirno waan ku dhahnay ilaa arintan aan rabnaa fikirkan sideed u aragtaan booliisku wuxuu arkay xoogaa inay dhibaato kale ay noqon karto haddaan sameeyno Cabdixakiin ayaa isna tilmaamay in walow 40 qofood oo mutadawiciin ah loo tababaray amaan ahaan aan misna loo ogoleen inay hub qaataan balse ay sameynayaan tilaabooyin dhowr ah oo ka hortag ah sida inay istaagaan jihooyin badan oo masjidka laga soo gali karo ama ay xitaa qofka su'aalo weydiin karaan kadibna ay haybtiisa qofeed markiiba ku wargelin karaan booliiska si loo baaro haddii uu qof hubaysan yahayna ay markiiba fariinta dhiilada ee SOS u dirayaan ciidamada roondeynaya ee jooga goobta marka ugu dhow dadka horta la tababarayo waxa weeye waa dadka masaajidka ka shaqeeya kuwa mutadawiciinta ah oo masaajidka jooga iyo maamulkiisa waxyaalaha laga tababarayo waa fikirka amniga horta muxuu yahay qof kasta muxuu qabanayaa xagee buu ka bilaabayaa shaqada shakhsiyaadka iyo kooxahan hadda weerarada geysta seebay u dhaqmaan seebay u egyihiin awood horta in loo yeesho in la fahmo oo laga hortago kooxahan Dayib Xaashi ayaa markale ka hadlay tilaabada ammaan ee uu qaadayo maadaama aanu ku guuleysanin hindisihiisa koowaad ee ahaa in isaga iyo dukaamo badan oo la darisi ay yeeshaan ilaalo awood buuxda leh oo ay iyagu maamulaan customerka aan leenahay ama macaamiisheena ama dhoo Soomaaliga anu saxaya intooda badan waa dad ka imaada masaajidka waa dad ku xiran masaajidka ama waa dad agdegan masaajidka ama ahaado dad muslimiina ama yeesan ahaanba marka waxa jirta in masaajidkaas mar walba talaabada uu qaado ayaa waxaan isku daynaa in aan annagana aan qayb kamid ah aan noqono oo aan noqono iskaashato Cabdixakiin Maxamed ayaa dhanka kale sheegay in maamulada masaajiddu aanay kaliya ku ekaanaynin inay sameeyaan ilaaladan oo ah arrin ay iminka masaajid badanna ku dhaqaaqeen balse ay sidoo kale isku dayayaan inay galaangal u yeeshaan meelaha laga gooyo talada dalka iyagoo la xiriiraya siyaasiyiinta xisbiyada si loogu baraarugsanaado ifafaalahan cusub iyo saameynta ay ku leeyihiin siyaasiyiin badan oo ka tirsan xisbiyada soo galootidiidka ah oo badiya adeegsada erayo si afeeya kooxahan xag-jirka ah ee midigta fog u janjeera ee isirka u dagaalama in badan waa inaynu ka hadalno dadka awoodda leh siyaasiyiinta in hadda maanta hadallada si u dhigayaan nacaybka ay abuurayaan qayb weyn bay ka tahay hadda waxaynu xataa arkaynaa qoraalada ay sameynayaan Christchurch ninkii sameeyay
wuxuu soo qaadanay madaxweynaha Mareykanka ayuu ereyo badan ka soo qaadanay in la soo celiyo awoodii dadka cadaanka ah marka inaga xataa waxa muhiim afkaarta inaynu fahanno yaa in soo weeraraya marka waa inaynu kala hadli karno siyaasiyiinta iyo dadka mas'uuliyiinta ah in qof kastaba uu ka fakaro maanta dhiirigelinta uu sameeynaya dadka tan kalena ilaaladana in lagu badiyo dadka xag-jirka cadaanka ah oo wadaniyiinta ah Maxamed Xaaji, Gothenburg, Sweden.